kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka sportiga Universal TV oo xilligan idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Nairobi. Magacaygu waa Ibrahim Gedo Cawaale. Qodobada wararka sportiga xilligan aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona suuqa kala iibsiga ciyaartoyda qaaradda Yurub ee bisha January oo xalay la soo xiray ciyaartoy waaweyn oo kala wareegay kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub iyo kooxo ku fashilmay in ay ciyaartoy helaan bisha January. guud ahaan horyaalka dalka Ingiriiska oo noqday horyaalka lacagaha ugu badan qarash gareeyay iyo qodobo kale. horyaalka dalka Ingiriiska ayaa noqday horyaalka lacagaha ugu badan qarash gareeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda qaaradda Yurub ee bisha January oo xalay la soo xiray. kooxaha horyaalka Ingiriiska ayaa 130 milyan oo pound ciyaartoy ku soo kala iibsaday iyadoo kooxaha Manchester United iyo Chelsea ay noqdeen kooxaha lacagaha ugu badan qarash gareeyay. maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo ahayd shalay ayaa kooxda Arsenal waxa ay si amaah ku soo qaadatay xidig gareer Sweden ee Kim Klestrom. 17 jirkan Sweden u saftay 108 jeer xulka qaranka ayaa Arsenal la joogi doona 6 bil ee ka dhiman xilli ciyaareedkan waxaana uu xallin doona dhibaatada qadka dhexe ee kooxda Arsenal ka haysata 2 bilood ee soo socota iyadoo dhaawacyo ay kaga maqan yihiin Aaron Ramsey iyo Jack Wilshere tiyo ay jirto in Matthew Flamini 3 kulan oo ganaax uu kaga maqnaan doono. Arsene Wenger ayaa ku fashilmay shalay in uu helo weeraryahan cusub isagoo dhowr isku day uu sameeyay guuldaro ku soo dhamaatay Miroslav Klose oo Lazio ka tirsan Salman Kalou oo kooxda Lille ciyaara Bobby Cisse iyo weeraryahanno kale ayuu Arsene Wenger isku dayay daqiiqadii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. kooxda Chelsea ayaa ka Zuma oo daafac uga ciyaaraya kooxda Saint Etienne 12 milyan oo pound ku soo iibsatay. xidigan caalamiga ayaa ka tirsan xulka qaranka Faransiiska 22 jirada waxaana kooxda Chelsea uu siixay maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda heshiis 5 sanadood iyo bar ku haynaya Stamford Bridge. kooxda Manchester City-na isku dayo ay sameysay ayay ku fashilantay maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo ay ku doonaysay xidiga kooxda Porto Mangala oo daafac ka ciyaaraya Fernando oo qadka dhexe ka tirsan. kooxda Liverpoolna wax ciyaartoy ma aysan soo iibsan bisha January kadib markii daqiiqadii ugu dambeeyay uu fashilmay heshiis ay kooxda Dnipro ee dalka Ukraine kaga doonaysay xidiga weerarka ka ciyaaraya Kobnielyanka. waxaana Liverpool ay ku dhameysatay bisha January iyadoo wax ciyaartoy aan soo iibsan. kooxda Fulham ayaa xidiga heshay kadib markii amaah ay kaga soo qaadatay Holtby kooxda Tottenham. hase yeeshee Dimitri Berbatov ay weysay kooxda Fulham kaasoo ku biiray kooxda Monaco ee dalka Faransiiska oo amaah kula joogi doona inta ka dhiman xilli ciyaareedkan isagoo buuxin doona booska Falcao oo kooxdaasi ka dhaawacan. Manchester United ayaa sidoo kale suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maalintii ugu dambeysay aanan ku lug lahayn iyadoo horey maanta 37 milyan oo pound ugu soo iibsatay. horyaalka dalka Talyaaniga kooxda Inter Milan ayaa lacagaha ugu badan qarash gareysay iyadoo kooxaha Talyaaniga 30 milyan oo pound ay bisha January qarash gareeyeen. waxaana kooxda Inter Milan 16.5 milyan oo pound oo dhigantay 19 milyan oo euro ay ku iibsatay Hernandez maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Hernandez ayaa ka tirsanaa kooxda Lazio 4 sano ugu dambeysay ciyaarayay wuxuuna kooxda Inter Milan u siixay heshiis 4 sano iyo bar ku haynaya gegada San Siro. kooxda Juventusna waxa ay la wareegtay Osvaldo oo weerarka uga ciyaaraya kooxda Southampton oo amaah ay ku qaadatay inta ka dhiman xilli ciyaareedkan iyadoo haysata dooq kale oo ay ku iibsan karto haddii uu anfaco. kooxda Lazio uu ka tagay Hernandezna waxay amaah kaga soo qaadatay Kakuto oo xidiga lagu magacaabo kooxda Chelsea. xidigan ayaa u dhashay dalka Faransiiska. AC Milan ayaa iyadoo horey u adeegatay iyadoo xidigo si bilaash ay ku hesho ay ka mid yihiin ACN, Adil Tarabat iyo Honda. kooxaha dalka Spain ayaana saameyn badan ku lahayn suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha January iyadoo shalay oo ugu dambeysay kooxda Valencia ee laba xidig oo waaweyn oo daafaca ka ciyaartay la soo wareegtay. xidiga Philip Santos oo ka tirsanaa kooxda Fulham ayaa si rasmi ah u la wareegtay Valencia daqiiqadii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyadoo sidoo kale daafaca dhexe Otamendi oo ka tirsanaa kooxda Porto ay si amaah ku soo qaadatay inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. kooxda Atletico Madrid ayaa sidoo kale amaah dib ugu soo ceshatay xidigeedii hore reer Brazil Diego oo ah kubad sameeye qadka dhexe ka ciyaara. kooxaha waaweyn ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa iyagu inta badan suuqa ku lug yeelan bisha January. guud ahaan kooxaha dalka Faransiiska ayaa kaalinta labaad ka galay lacagaha ugu badan ee la qarash gareeyay iyadoo horyaalka Faransiiska 52 milyan ay kooxahoodu qarash gareeyeen halka horyaalka dalka Talyaaniga 39 milyan ay ka qarash gareeyeen. Germany-na 26 milyan oo pound. guud ahaan wararkii sportiga oo xilligan idinkaga imaanayay stuudiyaha Universal TV ee magaalada Nairobi waa nageynta waa anigoo Ibrahim Gedo Cawaale iyo Maxamed Xuseen oo kaamirada inoo duubay. dibitaanu kulmi doono amaanal.